أنا وقوها الله يأفك مدحوينها جمهورية الصوماليلان أفك حكومة إيه أفك جدّجا مدحوينه أحر صاري أرمها أو وزير هذا هذا عن نسير حفرنا إن أي حكومة الصوماليلان كوبا قضوا لقبل على وقت كان إنه هذا إنه إن حبت توجين بلا شروطه أنه كل واقعنا ده كيانا هذا إنه حكومة جمهورية الصوماليلان حقوقا دhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mid waxa la wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in ay arinta miiska wada hadalka timaado oo laga wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay waxaan kaga ambaxayaa hadalkayga dhibaatada jirta hadba meesha marka ay taagan tahay ayay ugu yartaa maanta halka ay taagan tahay hadaynu ku afqabano kulligeen guul baynu wada joognaa ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka balaaran kii hore annagoo aan dhan kasta u taabanaya khasaara waxaan ku celinayaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado xabadana joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka hogaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arintani dhimayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go'aamada kuwa la mid qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana la isugu yimaado lagana wada hadlo wixii aynu ku kala duwanahay waxaanu baaqaa islaanahay waa mid xambaarsan nuxurkii dawladnimo iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa maamulka ee nuxurka dawladnimo xambaarsan iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Lascaanood